marka laga yimaado ciidamada sida tooska ula dagaalamay argagaxsadii weerarka ku soo qaaday ee soo afjaray damacoodii guracnaa waxa iyaguna kaalintoodii qaatay shacabka deegaanka Soomaalida oo si guud aan u kala hadhin la dagaalanka argagaxisada waxayna shacabku muujiyeen dareen ay kaga soo horjeedaan cadawga ku soo duulay deegaanka Soomaalida iyagoo sidoo kale taageerooyin kala duwan la garab taagnaa ciidamada difaaca ee dagaalka kula jiray argagixisada al-shabaab maamulka gobolka Daawa iyo kuwa degmooyinka gobolkaasi ayaa ciidamada deegaanka Soomaalida ay xooga gaarka ugu deeqa kala duwan maamulka Daawa iyo degmooyinkooda iskaashanaya ayaa ciidanka xooga gaarka ah ee deegaanka Soomaalida ugu deeqay 200 oo neef oo ari ah waxayna qayb ka tahay garab istaaga geesiyaasha ciidamada deegaanka Soomaalida oo wada hawlgallo culus oo ay ku ciribtirayaan kooxda argagixisada ah ee al-shabaab ee duulaanka soo qaaday eriga la rarayaa u jeedaan waa erigii garab istaaga ciidanka gaarka hadda waa la rarayaa guud ahaan gobolka Daawa waxaan ka rarnay 200 oo neef oo ari ah si emergency ah oo wiliba loo howlgalino xalay maanta xalay saakon laga howlgalay hadda gurmad garab istaaga ciidanka gaarka inaan gaarsiino ayaan hadda u diyaarinay marka waa kaas oo ariga aad u jeedaan waa 2 FSR 100 baan saarayna arigan hadda 2 gaari oo FSR lagu rarayo tiradiisu waa 200 oo neef arigan ujeedada aan u rarayno waxay ahayd garab istaaga ciidanka gaarka ee deegaanka Soomaalida oo dagaal kula jira al-Qushaash maadaama ciidankeenu howshaasi ku jiro yaan si degdeg ah ama emergency ah 200 oo neef aan u diyaarinay oo hadda 2 FSR aan ku raraynay marka insha Allah wixii kale loo baahdana diyaar baan u nahay hoo iyo hiil iyo dhan kastaba ciidankeena waan garab taaganahay baan leeyahay dhinaca kale qaar ka mid ah hogaamiye dhaqameedka iyo dhalinyarada gobolka City ayaa sheegay inay taageero dhinac walba leh la garab joogan geesiyada ciidanka xooga gaarka ah ee deegaanka Soomaalida oo al-Qushaash 10 laba ilaawaan ah u dhigay iyagoo intaasi ku daray inay naf muruq maal iyo maskaxba u hurayaan geesiyada ciidanka xooga gaarka ah ee deegaanka Soomaalida waxaan ogsoonahay dhowr maalmood ka hor deegaankeena inay soo weerareen ururka argagixisada ee al-shabaab isla markaana gacan adag oo lagu riday gacan baan dhibaato baan la gaarsiiyay isla markaana laga saaray goobihii ay soo weerareen waxaan maanta dhiigayga ugu deeqayaa ciidankayga si aan u garab istaago ama aan ugu muujiyo inaan garab joogo heel iyo hoon aan la garab istaago sidoo kale dhammaan ummadda Soomaaliyeed deegaankeena waxaan ugu baaqayaa in ay garab istaagaan ciidankeena heel iyo hoon la garab istaagaan dhammaan dhiigooga ay ugu deeqaan gobol ahaan gobolka waxaan si gaar ah ugu baaqayaa dhalinyarada gobolka waxgaradka in ay garab istaagaan ciidankooga isla markaana ay heel iyo hooba la garab istaagaan dhiigoogana ay ugu deeqaan dhiig shubisbeedo dhiig waxaan u imanay inaan dhiig shubno waxaan u shubaynay geesiyaasha maaragtay liib booliska la dagaalamaya qolada argagixisada al-shabaab iyo galbeedka City markaas waxaan u nimanay inaan dhiiga u shubno walaalaheena aan la garab joogsano aan ku deeqno dhiigeena ani ahaan inaan dhiigay ku deeqaano miday waana shubay oo ujeeda Daarad Ismaaciil Xuseen oo ah muwaadin ganacsadaha oo u dhashay deegaanka Soomaalida ahna mulkiilaha shirkadda dhismaha Damal Construction ayaa ciidamada xooga gaarka ah ee deegaanka Soomaalida ugu deeqay 2 gaari oo biyo sifaysan ah mulkiilaha shirkadda Damal oo warbaahinta la hadlay ayaa sheegay in xilliga lagu jiro qof kasta oo muwaadin ah mas'uuliyadii ay ka saaran tahay difaaca iyo wadaniyada dalka iyo deegaankiisa isla markaasina loo baahan yahay in gacmaha la isqabsado dhinacna looga soo wada jeesado cadawga argagixisada ah ee dad qalatada ah ee ku soo duulay deegaankeena waxaanu u nimidnay inaanu garab istaagno ciidamada dawladda deegaanka Soomaalida oo dagaal kula jira kooxaha argagixisada ee ka soo gudbay xadka iyagoo talaabooyin wanaagsan oo lagu diirsada ka qaaday waxaanu u nimidnay inaanu si shakhsi ah u garab istaagno ciidamada annaga oo ugu deeqayna gaariga naga dambeeya oo biyo ah waxaanu ka raraynaa biyaha xarunta soo saarka biyaha Shifo magaalada Goday waxaan u soo qalab qaadanay oo u soo ambabaxnay oo magaaladii caasimadda deegaanka uga soo baxnay inaanu ciidamada u muujino heel iyo hoo si aanu u garab istaagno ama aanu u tusno inay dadkooda iyo bulshadooda dhammaan ay garab taagan yihiin geesiyada liyuuga oo garabkiina midig iyo gaashaan bir aan nahay waxal ku dhaga hooyooyinka degmada Fiiq ee xarunta